السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام دين داوديال meel walba joogtaan iyo si walba muuqaalkan u daawaneysaan kusoo dhawaada cashirkeenii lixaad ee ku saabsanaa koorskeeniina macbaxay computerized accounting oo aynu ku baranaynay softwarekeenii P3 insha Allah maanta cashirkeen waxaan ku leenahay laba ujeedo. Ujeedada koowaad waxay tahay inaynu ogaano waxa uu yahay inventory item. Ujeedada labaadna waxay tahay inaynu abuuri karno inventory item. balse intaan u gudbin cashirkeena kusoo dhawaada muuqaalkeena. Inventory waxaa loo yaqaanaa alaabta aad iibiso ama badeecada aad iibiso. Tusaale ahaan company-geena haddii uu yahay company ka shaqeeya electroniga, waxaa badeeco u ah mobilada, kombiyuutarada, alaabta ay iibino ayaa waxaa loo yaqaanaa inventory. Waxaa waajib ah inaan P3-geena barno dhammaan noocyada alaabta ay iibino, maadaama aan rabno shay walba iibino inaanu transaction-kaasi aan ka dhex fulino P3. Marka haddeertaan aan tuso sida loo sameeyo inventory item. Okay, ujeedada koowaad ee cashirkeena waxay tahay inaan sameeyno inventory item. Waxaan tegaynaa maintain menu, kadib waxaan kasii dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay inventory item. Marka inventory item oo qoran shaashadana ma soo bixi doonto. Waxaa laga baahan yahay meelaha bannaan inaad buuxiso. Haddii aan ku bilaabno itemka ID-giisa, tusaalahan waxaan leenahay inventory 001 ID-giisa ka dhigana. ID-ga waxaa rabtaa ka dhigin kartaa. Okay, description-ka waxaad qoraysaa waxa aad gadayso waxa uu yahay, inventory-ga waxa uu yahay. Waxaan ku qoraynaa tusaalahan Samsung A50. Okay, item glasska ayaa furaynaa fayl. Marka aan furno shaygan oo inventory-ga ah, ma waxaad u isticmaal rabtaa inta soo gataa, waxaa rabtaa inaad sii iibiso, mise waxaa rabtaa inaad inta soo gato aad farsameyso aad product nooc kale ka soo saarto. Okay, haddii ay tahay inaad soo gato isla markaasna aad sii gado, waxaa leedahay stock. Haddii ay tahay laakiin inaad soo gato kadibna aad farsamooyin kale iyo wax kale raw material ahaan u isticmaalisid, waxaa dhehaysaa non stock. Okay, aniga waxaa tusaalahan soo qaadanaa mobilka waa soo gadinaa waan sii gadinaa. Okay, stock item one. Stock item markaa dhahno description-ka waa inaan ka dhignaa for sale. Okay, waxaa ka dhignaa description-ka for sale. haddii aan non stock aad ka dhigno waxaa muhiim inaan ka dhigno for purchase, waa soo gadanaa ka dhigin. Okay, hadda waxaan oo for sale. Okay, qaybta hoos weeyno. Qaybta hoos marka ay imaato price level ku saaran. Inventory-gaani meeqa ayaa gadaysaa. Haddii aad rabto inaad hal price aad gato kaliya, tusaale ahaan mobilkan $100 inaad gato ama $150 inaad gato daarto, waa samaysan kartaa. Haddii kale waxaa fursad u haystaa inaad laba price, saddex price aad samaysato, oo mid aad dhahdo jumla ahaan qoftii gadanayso price noocaas aad ka siinaa, qoftii tafaariiqii gadanayso price noocaas aad ka siinaa. Haddii aad rabto wax dhan hal price aad ka dhigto, aad tafaariiqlii aad taana waxaa gelinaysaa price ku gelinaysaa. Laakiin aniga waxaa soo qaadanaa dukaankiin ugu weyn tusaale ahaan falaartana furayna. Okay, price level 1 waxaa ka dhigaynaa tusaale ahaan $200. qofkii noo gadanayo jumlo waxaa ka siinaynaa $200. Okay, qofkii tafaariiq ahaan noo gadanayo waxaa leenahay waxaa tusaale ahaan waxaa siin $220 kala tahay. kadib waxaa leenahay okay, last unit cost waxaa waa meeqa ay kugu fadhiyaa mobilkan ama shaygan aad gadayso. Tusaale ahaan waxaa iska dhahan anaga inuu nagu fadhiyo $180 kala inuu nagu fadhiyo iska. Okay, cost method mid ka isticmaalaysaa first in first out ma isticmaalaysaa, FIFO ma isticmaalaysaa, last in first out ma isticmaalaysaa. Cost method waxaa lagu jeedaa tusaale ahaan mobilkan wuxuu nagu fadhi jiray $180. waxaa noo taala 10 mobil oo nagu fadhiso $180. waxaa raqiisay mobilkii $180 lagu jiray, haddeertan suuq wuxuu ku jiraa $160. marka waxaa soo iibsanay 20 mobil kale tood 20 mobil aad soo iibsanay waxay noogu fadhisaa $160. marka P3 wuxuu ku weydiinayaa inventory-ga hore ma gadina oo $180 noogu fadhiyay, mise waxaan gadinaa midka dambe oo noogu fadhiyay $160. haddii aynu dhahno waxaan gadinaa kii noogu fadhiyay $180, waxaa leenahay first in first out, kii hore ayaa marka hore gadinaa. laakiin haddii aan rabno inaan gadno midkii dambe oo $160 ahay, waxaa leenahay last in first out LIFO. kan horena wuxuu ahay first in first out FIFO. ama haddii kale waxaa u samayn kartaa average. average macnaheedu waxay tahay 180 waxaan ku daraynaa 160 kadibna laba u qaybinaynaa. costiga soo baxo ayaa noqon doona waxa uu noogu fadhiyo. marka midka aad dooranayso adiga ayaa yaqaan. aniga tusaale waxaan iskeenaa FIFO. Okay, qaybta hoose waxaa ku qoran UBC ama SKU. UBC waxaa lagu wadaa Universal Product Code. waa code ay ku qoran tahay nambaro.
marka waxaa laga yaabaa inaan aqaano laakiin asigoo sawir ayaan shaashada idiin soo saari doonaa. Okay, numberka meeshaas ku qoran aad gelinaysaa. meelahan muhiim ah, qeybahan ugu dambeeya muhiim ah, location ku yaalo, meesha yaalo, weydkiisa wax dhan muhiim ah. Daarta bixi kartaa, daarta ma ka tagi kartaa. Okay, qeybtan kale oo imaan GL series account. sheyga marka aad gadno account-ka ku dhacaya maxaa waa lacagta account-ka ku dhacayso. waa inaan ka soo dhignaa sales revenue. Okay, no for falaart ma fur. أنا أكون sales revenue حنوخرن أكون دخلي أنا أخرن. أوكي دخلي قاعد دورنا. لكن أنا دو وحدورنا sales revenue. أيدي سامي سدولا. أوكي inventory account ولا جاي بهاي عشان إنه كوس مسيا. هدي هو كوس مسيا واسمين سا. inventory account محاكلين أنا مركا inventory asset أيكدوس كسور هذينا ماشان. ورادينا وحنروح رادينا ماشان inventory asset. هدي هو كوجر وصو دورنا سا. لكن هدي هو كوجر أنا عملتي وين أسوأ ورثة وواجب. نيو ولا نا شاشة دانا يا نص ولا حس. أوكي أكون أيدي وعسكرينا نمبر كارت وعسكري كرتنا. أوكي description كانوا حقورينا inventory asset. أكون type كانوا حقلينا سؤالان inventory. أوكي كدي بحالنا save فرق لانه قانون ده ماسك سوحرينا. حدرتان هدي أنا فرنو inventory account وعنا صبح دونه inventory asset. كدي inventory asset ده دورنا. أوكي cost of sales شيء عاد اللي فيه أكون ماشي كأرور راينا لقارن قبتنا. وحكي سوري هنا cost of goods sold. cost of goods sold هدي كوس مثلا يعني عمل وفي عنتا هدي الكوس مثلا ما أنا صوص مثلا cost of goods sold. أوكي قيبتو سو عنشور أنا سومان هدانا عنشور وحسمنها كدي بس كرافينا. أوكي قيبتو سيجو هدي هالمرة قيبتنا كسوع اليو sales أكون وإنا جلسة sales revenue. inventory account وإنا جلسة inventory asset. يعني inventory account لو inventory جست مثل لو inventory item inventory asset. inventory item كوحكوا حسابنا يا أنت حبوا شيء يعني سؤال أهم تو موبايل لو عطوا موبايل. inventory asset كنا وحسابنا يا تبوك موبايل كوحي جوان. قيب توس أسوق جذب. ماشي عن قرنتها minimum stock. وحال روا إنا جلسة أنت ويل خارك إنا كوهرت عرفته. سؤال أنا وحاسك هنا صدنا حبوا. reorder quantity shaqada ku qabanayso waxay tahay inay ku soo xasuusiso tusaale ahaan aniga dukaankeena marabno in alaab naga goodo marka waxa leenahay alaabta gadiino hadii ay gaarto 20 xabba 30 xabba hadii ay gaarto inaan soo xasuusisaa rabnaa maxaa yeelay hadii ay dukaanka alaab ka dhamaato inta la dalbaayo soo waqtiga u dhaxeeyo marka anaga macaamiishan inay naga tagaan marabno waxa dheenaa marka mobilada aan gadiino hadii ay gaaraan 15 mobile waa inaan soo xasuusiyaa si aan u dalbano mobile kale toos. Okay inta dalabku uu ku maqan yahay aad bishanta xabal sii gadaya marka reorder quantity shaqada qabanayso xataa waa shaqo xasuusin ah oo aad iyo aad muhiim u ah hadii uu jiro vendor ay tahay inaad ka soo iibsato ama vendorada mid ka fiican inta gelinaysa vendorkaas ay dhigiisa gelinaysa ama magaciisa inta kala soo bixaysaa anaga hal vendor noo samaysa suuqil spare parts gadan kuwaas mobile ma gadaan laakiin waa inay gelisaa vendorka. Okay intaas markaas sameeyno waxa leenahay save waxa u jeedaa hadartan inuu noo soo gaarsiimay inventory asmeena sidoo ku ogaan karnaa inaan sameeyno waxa leenahay list meesha ku qoran taawanina waxa idin muuqato inuu soo baxay item ID oo yahay I001 description kiisana magaciisa uu yahay Samsung A50 item glasskiis uu yahay stock item price level uu yahay $200 last cost unit uu yahay $180 sidaas ayaa loo sameeyaa inventory-yada. waxaan rajeynayaa inaad casharkan aad fahamtay sidoo kale toodna aad isku dayi doonto inaad abuurto inventory waa cadbaas taxasan nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara ha noqon inta aan la tabin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.